dawladda lagu sheegayna waa 20 jirka uwaxa hadda soo baxay uwaxa hadana garab la siinin ogaada iskaashinaysa inay adduunyadana ay joogin caruurta ayaa ah ubax mustaqbalka wadan kasta waxaana muhiim ah in daryeelkooda nololeed la ilaaliyo sida waxbarashadooda caafimaadkooda iyo inay helaan nolol wanaagsan oo mustaqbalkooda go'aan ay ku gaari karaan isha Baydhabo oo ahayd goob caan ah oo loo soo dalxiis tago ayaa xilligan hoy u noqotay caruur darbi jiif ah oo aan daryeel haysan caruurtan ayaa ah kuwa aad u daayar waxaana daris kula noqdeen halkan eeyaha iyo dameeraha waxaana qaarkood ay dhaqaan gawaarida si nolol maalmeedkooda ay ugu maareeyaan qaar ka mid ah caruurtan isticmaasha daroogada noocyadeeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxay ku jiraan nolol aan u wanaagsaneyn caafimaadkooda iyo tan deegaanka waxaana xilli aan ugu tagay bohosha isha Baydhabo ay ku nool yihiin si aan wax badan uga ogaado noloshooda waxa ay dalbadeen in wax laga qabto xaaladaha nololeed ee xilligan ay ku sugan yihiin meeshan u jeedin kulay waa bohosha waxaan ku nool boqolaal kaas oo ah 20 jirkaas waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo in mar walba garabkooda kor loo qaado taasna waxay aad u baahanahay hadana 20 jir lixdii lixad waan qabnaa laakiin maana haysan wax dhaqaalana ugu baahanin aadana waxaan ugu baahanahay Allaahina uume ka gudub Soomaalida walaasha yareeha maad moon lamalna siyaay male adduunyadu siya bilambaru walaalka maalin walan qowdaas ma la maalin wal mun qowdaas mana meen baana oo Soomaaliyeey muslimana la ilaaha illa muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam lana una walaaljoonge 20 jare oo wahay wadankeena wahay wadanku nooyana oo aan dhibaatadan ku nool ilaahay roorti ilaahay walba qafuur rahiimka walba ilaahay dad marsiye muddooyinkii dambe ayaa magaalada Baydhabo waxaa ku soo badanayay dhalinyarada isticmaasha maandooriyaasha noocyadooda kala duwan kuwaas oo u badan caruur aad u daayar waxaana qaar ka mid ah ay ka warbixinayaan sida xilliga noloshooda ay tahay anoo ay Mustafa Yare oo meeshan linka hadlow oo Soomaali meelaan ilmaan oo neetay isduufta ku haysto waaraba in duufta waan la qabto anagu waa u baahanahay dhaqan inay tay wax walba inaan noo qabto waan rabnaa meelahan oo rafaadkan ilmaan ku rafaasin inaan naga saaro waan noo qabto murtadkii jacaylka qaas ahaan leeyagu sheego cadow haduu jir rufyaan lama waayo aan shaqana calafka ka weene عادل وائله أنا لا حقي سنة حسكنا جاي Soomaali weyn amad goysan xarigi ka gudub Yacquub Isaaq Maxamed waxa uu kamid yahay bahda waxbarashada gobolka Bay waxana uu kamid yahay maamulka jaamacadda Zamzam University qaybteeda Baydhabo waxana uu ku talinayaa in dhalinyaradan laga waaciyo wadada qaldan xilligan ay hayaan isla markaasina loo abuuro jawi degan oo noloshooda wax ka bedeli kara inaan ka shaqeyno horumarinta caruurta waa qayb weyn oo kamid ah marka laga hadlaayo arimaha horumarinta marka laga hadlaayo ama waxa loo yaqaan Millennium Development Goals oo mar hore adduunka oo la soo saaray in caruurta laga shaqeeyo Siraaj Isaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo